aaladaha kala duwan ee Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger ayaa mar qura hawada ka wada baxay. Arrinkaasi wuxuu saameeyay dhammaanba bulshada adduunka ku nool. Qoraal ka soo baxay shirkadda Facebook ayaa lagu daabacay bartooda Twitter-ka ay ku leeyihiin. Waxay yidhaahdeen waanu ka warqabnaa in dad badani dhib ku qabaan gelidda amba helidda fariimaha kala duwan ee Facebook, WhatsApp, Instagram-ka uga soo dhacay. Taasna waanu ka raaligelinaynaa. Waxaanu ka shaqaynaynaa wax walbaba inay ku soo noqdaan sidii caadiga ahayd ee hore. Sida ugu dhaqsaha badan leh uguna macquulsan waxa idinka raaligelinaynaa cilada farsamo ee ku timid. Waa sida iyagu hadalka u dhigeen kuwaasoo ku soo shaaciyay ama si soo dhigay Twitter-ka. cilada ku timid Facebook, WhatsApp iyo Instagram waxay ku noqon doontaa khasaare aad iyo aad u ballaaran run ahaantii. Arrinkan saameyn weyn ayuu ku yeelan doonaa kamana soo kaban doonaan muddo. Macluumaad ka badan 1.5 bilyan oo leeyihiin isticmaalayaasha Facebook ayaa run ahaantii looga shaki qabaa in lagu iibiyey shabakada madow ee dark web. Waxaa laga shaki qabaa xogaha la iibiyey inay yihiin sawirada, magacyada, gmailada, nambarada iyo welibana sharciyada aydiyada baasaboorada ugu jiray dadka kala duwan ee isticmaalayaasha Facebook, WhatsApp iyo Instagram-ba. Xogahaas ayaa looga shaki qabaa in lagu iibiyey shabakada madow ee dark web. Sidoo kalena waxaa laga shaki qabaa akoono badan ay leeyihiin isticmaalayaashu in la waayi doono. Maxaa sababi kara in hal mar hawada ay ka wada baxaan WhatsApp, Facebook iyo Instagram? Waxaa looga shakisan yahay in la soo weeraray taasoo sababtay inay hal mar hawada ka wada baxaan. Weerar lagu soo qaaday kadib xal waxay u arkeen inay gebi ahaanba wada xidhaan oo ay hawada ka saaraan aaladahaas kala duwan si ay u ilaaliyaan siro fara badan ay leeyihiin isticmaalayaasha Facebook, Instagram iyo WhatsApp. Waqti xaadirkan shirkadda Facebook waxay isku dayeysaa inay ilaaliyaan xogag badan ay leeyihiin isticmaalayaasha Facebook, WhatsApp iyo Instagram si uuna qofna u awoodin inuu galo aaladahaas kala duwan isagoo dhaqdhaqaaq ka dhex samaynaya. Waxay isku dayayaan inay sugaan ammaanka laakiinse iyaga laftirkooda tan waxay ku noqonaysaa caqabad. Hoos u dhac ballaaran ayaa kaga yimid dhanka dhaqaalaha. Dhibaatooyinkaas ay qarinayaan soo wajahay ay run ahaantii xal waxay u arkeen inay gebi ahaanba xidhaan aaladahaas kala duwan. Waqti xaadirkan waxay ku mashquulsan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen khasaarahaas ballaaran ee soo wajahay. Arrinkan wuxuu saameyn weyn ku yeeshay dhammaanba adduunka. Sidoo kalena waxaa hadal haya bulshada kala duwan. Dad malaayiin qof ayaa hal mar waxay ku wada daateen amase ay la soo wada degeen Telegram, Clubhouse, TikTok. Dhammaanba bulshada kala duwan ee adduunka ku nool ayaa la soo wada degay iyagoo jam ka dhigay Telegram-ka heer uu gaadhay xitaa inuu culays noqdo. Arrinkan wuxuu u noqday jaanis iyo welibana faa'iido aad iyo aad u badan sababtoo ah malaayiin amase kumanaan dad ayaa hal mar la soo wada degay aaladahaas kala duwan. Xagga shirkadaha Facebook iyo WhatsApp, Instagram ee khasaare ballaaran ka soo gaadhay xiritaankaas amba intaa yaruu hawada ka baxay. Haddaba daawade arrinkani ma saameeyay goobta aad ku sugan tahay amase waddanka aad joogto? Nagula wadaag xagga commentiga. Maxaad se u malaynaysaa cilada ku timi Facebook, WhatsApp iyo Instagram ma mid la hagaajin karaa mise sidan ayuu sii ahaanayaa? Fikirkaagu waa noo muhiim daawade. Waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. Ha ka ilaawin inaad like saarto sidoo kalena asxaabtaada u sheergaraysid adigoo la wadaagaya. Subscribe saar channelkan nagu soo bir haddii aanad hore noola joogin. Waa anigoo ah Nadra Saciid.